taariikhda aadamaha waxaa jira shakhsiyaad noqda harka iyo muraayadda ay ka muuqato weynaynta hogaamiyahooda, rag aan ka leexan jidka oo naftooda iyo maalkoodaba u hura sidii ay u difaaci lahaayeen fariin ay rumaysteen. soo dhowaada saaxiibayaal, aniga waxaan ahay Abshir Casaawe, halkanna waa Casaawe Media. maanta waxaynu ka hadli doonaa qisada Abuubakar al-Sadiiq, Allah ka raali noqdee. qisadeenna maanta ma ahan oo keliya sheekada khaliifkii koowaad ee Islaamka, ee waa sheekada ninkii ugu horeeyey ee rag ah ee rumeeyey rasuulka sallallahu calayhi wasallam, saaxiibkii ugu dhowaa, wehelkiisii godka Sawr, sodogiis, iyo ninkii uu rasuulka sallallahu calayhi wasallam ugu jeclaa ummaddiisa. waa qisadii Cabdullaahi ibn Abi Quxaafa ee loo yaqaanay Abuubakar al-Sadiiq. safarkan waxaan si qoto dheer u dhexgeli doonaa noloshiisii oo dhan, laga soo bilaabo shakhsiyaddiisii sharafta lahayd ee jaahiliyada ilaa rumayntii degdega ahayd ee aan shakiga ku jirin, halgankiisii Maka, hijradiisii taariikhiga ahayd, doorkii Madiina, iyo siduu ummaddan u badbaadiyey markii ay ku sigatay inay burburto geeridii rasuulka kadib. xitaa ka hor Islaamka, Abuubakar waxa uu ahaa nin ka soocan dadkii uu la noolaa. waxa uu ka dhashay qoys sharaf leh oo reer Taym ah. waxa uu ahaa nin ganacsado ah oo hanti badan, laakiin hantidiisa ma ahayn waxa dadka soo jiitay. waxa uu ahaa nin akhlaaq sare leh, jilicsan, deeqsi ah oo dadkana jecel. golayaashiisa waxaa imaan jiray madaxda Quraysh si ay ugala tashtaan arrimaha muhiimka ah. waxa uu ahaa qabiil ku takhasusay abtirsiinta Carabta. waxa uu ahaa nin dadka u kala garqaada. waxaa intaa u dheerayd inuu ahaa mid iska ilaaliya wasaqdii jaahiliyada. cimrigiisa oo dhan marnaba sanad ma uusan caabudin, marnaba khamri ma uusan cabin. qalbigiisu waxa uu ahaa mid nadiif ah oo sugayey iftiinka xaqa ah. dabeecaddiisa waxaa ka mid ahaa naxariis xaddaaf ah, taasoo keentay in loogu yeero al-Awwaax. waxa uu ahaa nin aan awoodin inuu daawado qof la dulminaya, wuxuuna ahaa qof haddii uu dulmi arko u gargaara kan la dulminayo. shakhsiyaddan wanaagsan waxay ahayd miduu Alle ugu diyaarinayey hawsha weyn ee nolosha ee u qornayd. isaga iyo Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam waxay ahaayeen saaxiibo aad isugu dhow tan iyo yaraantoodii, saaxiibtinimadaas oo ku dhisnayd is-ixtiraam iyo akhlaaq wanaagsan. markii uu nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee uu waxyiga ku soo degay, qofkii ugu horeeyey ee rag ah ee u soo bandhigay diinta waxa uu ahaa saaxiibkiis uu ku kalsoonaa, Abuubakar al-Sadiiq. wuxuuna ku yidhi, Abuubakarow, waxaan ahay rasuulkii Alle. Abuubakar oo si fiican u yaqaanay runsheegnimada iyo aaminaadda saaxiibkiis, hal ilbiriqsi kamuusan shakin, mana uusan weydiin sidee, goorma, maxaa caddayn u haysaa. su'aalahaasi oo dhammi way baaba'een markii uu arkay wejiga saaxiibkiis. wuxuuna si degdega ugu yidhi, waan ku rumeeyey. rumayntan degdega ah ee aan shuruudaha lahayn waxay ahayd aasaaskii uu ku helay magaciisii ugu weynaa. maalintii xigtay markii uu nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee uu dadka uga sheekeeyey safarkiisii mucjisada ahaa ee al-Israa wal-Micraaj, gaaladii Quraysh way ku qosleen. qaarkii iimaankooda uu daciifka ahaana way shakiyeen, waxayna u ordeen Abuubakar iyagoo leh, ma maqashay waxa uu saaxiibkaa sheegayo? waxa uu leeyahay, hal habeen ayaan ku tegey Baytulmaqdes oona ku soo noqday. Abuubakar waxa uu yidhi, ma isaga ayaa sidaas yidhi? markay dhaheen haa, Abuubakar waxa uu ku jawaabay hadalkiisii caanka ahaa. waxuuna yidhi, haddii uu isagu yidhi, waa run, wallaahi anigu waan ku rumaysanahay wax ka weyn taas. waxaana ku rumaysanahay warka samada uga yimid subaxa iyo galabta. maalintaas nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu siiyey magacii sharafta lahaa ee Abuubakar al-Sadiiq, kii runlowga ahaa. islaamitaankiisii kadib, Abuubakar ma uu noqon oo keliya mid rumaystay, balse waxa uu noqday daaci firfircoon. wuxuuna ahaa nin la jecel yahay oo dadka saamayn ku leh. gacantiisii waxaa ku soo islaamay 5 ka mid ah 10kii jannada loogu bishaareeyey: Cusmaan ibnu Cafaan, Zubayr ibnu Cawaam, Dalxa bin Cubaydillah, Sacd ibnu Abi Waqaas, iyo Cabdiraxmaan ibnu Cawf. wuxuu naftiisa iyo maalkiisa u huray diinta Islaamka. markii Quraysh dhibaatada ku kordhisay muslimiinta, waxa uu ahaa mid ka mid ah kuwa ugu badan ee la kulmay dhibaatada. maalin isagoo difaacaya nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee
ayaa la isugu tegey, waxaana loo garaacay si arxandaro ah ilaa laga mooday inuu dhintay. Laakiin camalkiisii ugu weynaa ee xilligaas wuxuu ahaa xoraynta addoomihii muslimiinta ahaa ee la jir dilayey. Wuxuuna maalkiisii ku bixiyey inuu xoreeyo 7 addoon oo diinta darteed loo cadaabayey. Kan ugu caansanaana wuxuu ahaa Bilaal ibnu Rabaax, Allah ka raali noqdee, kaasoo sayidkiisa Umaya ibnu Khalaf uu ku jirdili jiray saxaraha kulul. Markii uu arkay Abubakar al-Sadiiq, waxa uu ku iibsaday qiimo sare, kadibna wuu xoreeyey. 10 sano oo dacwo iyo samir ah kadib Maka, markii ay Quraysh go'aansatay inay dilaan nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, Alla waxa uu u idmay inuu u haajiro Madiina. Dhammaan asxaabtu way haajireen marka laga reebo dhowr qof oo daciif ahaa iyo 2 nin oo sugayey amarka ugu dambeeya ee nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, iyo saaxiibkiis daacadda ahaa ee Abubakar. Abubakar waxa uu sii diyaariyey 2 halaad, wuxuuna sii bixiyey qarashkii safarka, isagoo maalin kasta filanayey in loo fasaxo inuu la haajiro saaxiibkiis uu jeclaa. Sugitaankaasi waxa uu ahaa mid muujinaya sida ugu heelanaa inuu naftiisa u huro difaacidda rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Ugu dambayn, habeenkii la sugayey wuu yimid. Jibriil ayaa u yimid nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, una sheegay shirqoolka Quraysh. Nebiga waxa uu tegey gurigii Abubakar, wuxuuna u sheegay in loo idmay inuu hijroodo. Abubakar farxad ayuu la ooyey, waxaana u rumowday rajadiisii ahayd inuu weheliyo rasuulka sallallahu calayhi wasallam, uuna ku weheliyo safarkan halista badan. Waxay u dhaqaaqeen dhanka koonfureed si ay cadowgooda u marin habaabiyaan, waxayna galeen godka Thawr. 3 maalmood ayay halkaas ku jireen. Gabadhii Abubakar ee Asma ayaa cuntada u keeni jirtay, walaalkeeda Cabdullaahina wuxuu u keeni jiray warka Quraysh. Addoonkoodii Caamir ibnu Fuhayra ayaa isagana ariga ku dabooli jiray raadkooda, wuxuuna ahaa qorshe qoys oo si heer sare ah loo agaasimay. Daqiiqadii ugu adkayd waxay timid markii ciidankii Quraysh ay soo gaareen afaafka godka, waxayna u jireen dhowr tallaabo oo keliya. Abubakar wuu walwalay, laakiin walwalkiisa ma ahayn naftiisa, balse waxa uu u baqayey nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Wuxuuna yidhi, rasuulkii Allow, haddii midkood uu hoos eego wayna arki lahaa. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu ku dejiyey ereyadii iimaanka ee Qur'aanka lagu wariyey, wuxuuna yidhi, ha murugoon, Allah ayaa inala jira. Yaqiintaas iyo kalsoonidaas ayaa qalbigiisa dejisay. Allana wuxuu ku ilaaliyey mucjisooyin. Caara ayaa afkii godka isku dabooshay, qolayna waxa ay dhigatay beedkeeda, taasoo cadowgii ka dhaadhicisay inaysan cidno gelin. Safarkii ayay sii wateen. Abubakar waxa uu hawaardiyaha rasuulka, mar wuu ka hormariyey, marna wuu ka dambaynayey, mar wuxuu ka mariyey midig, marna bidix, isagoo ka baqaya in cadowga uu soo gaaro. Ugu dambaynna waxay si nabada ku gaareen Madiina, halkaasoo ay ku soo dhoweeyeen dadkii reer Madiina. Abubakar waxa uu ahaa wasiirkii koowaad iyo la taliyaha ugu dhow ee rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Ma jirin go'aan weyn oo la gaaray oo uusan ka qayb ahayn. Waxa uu maalkiisa ku bixiyey dhismaha dowladdii Islaamka, wuxuuna iibiyey dhulkii lagu dhisay masjidka nebiga. Waxa uu ka qayb galay dhammaan dagaaladii uu galay nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, isagoo ahaa kan ugu dhow ee difaaca. Dagaalkii Badar waxa uu ahaa mid ka mid ah taliyayaashii wiilkiisii Cabdiraxmaan oo markaas gaal ahaa. Waxa uu ahaa dhinaca cadowga. Islaamitaankiisii kadib waxa uu aabbihiis ku yidhi, Aabow, maalintii Badar dhowr jeer ayaa ii soo muuqatay, laakiin waa kaa weecanayey si aanan kuu dilin. Abubakar waxa ugu jawaabay, anigase wallaahi haddii aad ii soo muuqan lahayd kaamaanan weecdeen oo waan ku dili lahaa. Dagaalkii Uxud markii ay muslimiinta jabeen oo ay dadkii kala carareen, Abubakar waxa uu ka mid ahaa kooxdii yareed ee u hartay difaaca rasuulka sallallahu calayhi wasallam, isagoo naftiisa uga dhigay gaashaan. Heshiiskii Xudaybiya markii Cumar ibnu Khadaab uu ka shakiyey qodobadii heshiiska, qofka keliya ee ku qanciyey waxa uu ahaa Abubakar al-Sadiiq. Dagaalkii Tabuuk markii uu nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee uu ku baaqay in wax la sadaqaysto, Cumar waxa uu keenay maalkiisa barkiis, isagoo isleh
maanta ayaa abubakar ka fadli badnaan doontaa. Laakiin abubakar waxa uu keenay maalkiisii oo dhan. Markii uu nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee uu weydiiyey, uuna ku yidhi, maxaad reerkaaga uga soo tagtay? Waxa uu ugu jawaabay, waxaan uga soo tagay Allah iyo rasuulkiisa. Sidoo kale, xiriirkiisii qoys waxa uu sii xoogeeyey markii uu nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee uu u guuriyey gabadhiisii Caysha, taasoo noqotay xaaskii ugu jeclaa rasuulka Khadiijo kadib. Nolosha nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee dhammaadkeedii waxaa soo muuqday calaamado badan oo muujinaya maqaamka Abubakar. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu yidhi, haddii aan saaxiib dhow ka yeelan lahaa ummaddayda, waxaan ka yeelan lahaa Abubakar. Laakiin waxaa jira walaaltinimada Islaamka iyo jacaylkeeda. Wuxuuna amray in dhammaan albaabada gaarka ah ee masjidka soo gala la xiro marka laga reebo kan Abubakar. Calaamadii ugu weyneed waxay timid markii uu nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee uu xanuunsaday. Wuxuuna si isdaba jooga u amray in Abubakar uu dadka tujiyo. Taasina waxay ahayd ishaaro cad oo ku saabsan cidda hoggaanka la wareegi doonta isaga kadib. Asxaabtiina way fahmeen calaamadahan. Waxaase timid mucjisadii ugu weyneed ee abid ku dhacda ummadda Islaamka. Markii uu nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee uu geeriyooday, Madiine waxaa qabsaday mugdi iyo naxdin. Asxaabtii way miir doorsameen. Xitaa Cumar binu Khadaab, geesigii weynaa, wuxuu awoodi waayey inuu xaqiiqada aqbalo. Wuxuuna ku goodiyey inuu dili doono qofkii yidhaahdaa Maxamed wuu dhintay. Xilligan adag ee ay ummadda ku sigatay inay kala daadato, waxaa soo baxay adkaysigii iyo iimaankii Abubakar as-Siddiiq. Wuxuuna si deggan u soo galay qolkii, wuxuuna wejiga ka dhunkaday saaxiibkiis dhintay, isagoo leh, nolol iyo geeriba waad udgoonayd, rasuulkii Allow. Kadibna wuxuu u soo baxay dadkii, wuxuuna fuulay mimbarkii, wuxuuna jeediyey khudbaddii badbaadisay ummadda. Wuxuuna yidhi, dadkanow, qofkii idinka mid ah ee caabudayay Maxamed wuu dhintay. Qofkii idinka mid ah ee caabudayay Alle wuu nool yahay, mana dhinto. Kadibna waxa uu akhriyey aayaddii ahayd, Maxamed ma ahan waxaan rasuul ahayn oo ka horeeyey rasuul kale. Haddii uu dhinto ama la dilo, miyaad cirbihiinna dib ugu laabanaysaan? Cumar waxa uu yidhi, wallaahi markii aan maqlay aayadda, waxay la noqotay sidii inaan horay u maqal. Lugahaygii way qaadi waayeen. Waxaana ogaaday in rasuulkii Alle uu dhintay. Adkaysigii iyo xigmaddiisii ayaa ummadda ka badbaadisay fidnadii ugu horeysay. Isla markiiba waxaa soo baxay caqabadihii hoggaanka. Ansaartii waxay isugu tageen Saqiifatu Bani Saciida. Abubakar, Cumar iyo Abu Cubayda waxay aadeen goobtii. Dood dheer kadib, xigmaddii iyo dadaalkii Abubakar ayaa guulaysatay. Waxaana si wada jira loo doortay Abubakar si uu u noqdo khaliifkii koowaad ee Islaamka. Laakiin imtixaankii hadda ayuu bilowday. Jasiiraddii Carabta oo dhan waxaa ka dilaacay fidnooyin waaweyn. Fidnadii koowaad waxay ahayd diinka noqoshada. Qabiilo badan ayaa diinta ka noqday, waxayna diideen inay bixiyaan zakada. Fidnadii labaadna waxay ahayd nebinimo been ah. Dad ay ka mid yihiin Musaylama al-Kaddaab ayaa sheegtay nebinimo. Fidnadii saddexaadna waxay ahayd ciidankii Usaama. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu geeridiisa ka hor diyaariyey ciidan uu hogaaminayo Usaama ibnu Zayd si uu u aado Shaam. Dad badan ayaana Abubakar kula taliyey inuusan dirin ciidankan xaaladdan adag awgeed. Waana halkan meeshay ka soo baxday go'aan qaadashadii birta ahayd ee Abubakar as-Siddiiq. Wuxuuna yidhi hadalkiisii caanka ahaa, waxa uu yidhi, wallaahi xitaa haddii ay eedu jiijiitaan lugaha xaasaska nebiga, ma furi doonaa calan uu gacantiisa ku xidhay rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Wuxuuna diray ciidankii Usaama. Wuxuuna faray in dagaal lala galo qabiilooyinkii sakada diiday. Xitaa Cumar ayaa kula taliyey inuu u jilciyo. Laakiin Abubakar wuxuu u istaagay istaag taariikhi ah. Wuxuuna yidhi, miyaa diinta la nusqaaminayaa anigoo nool? Wallaahi waan la dagaalamayaa qof kasta oo kala saara salaadda iyo sakada. Xitaa haddii ay ii diidaan xarig ay siin jireen rasuulka, waan kula dagaalamayaa. Wuxuu abaabulay ciidan uuna diray dagaalo adag kadib oo ugu weynaa kii Yamaama ee lala galay Musaylama
alla wuxuu ku guuleeyey islaamka, jasiiraddii carabtana way soo wada noqotay. go'aankiisan adag waxa uu badbaadiyey midnimadii iyo aasaaskii diinta. dagaalkii yamaama waxaa ku shahiiday xufaad badan. cumar ibnu khadaab wuxuu u yimid abubakar isagoo ka walwalsan in qur-aanka uu lumo, wuxuuna kula taliyey in qur-aanka la ururiyo. abubakar markii hore wuu ka cagajiiday, isagoo isleh sidee baan u samaynayaa wuxuusan rasuulka samayn. laakiin alla ayaa laabta u furay. wuxuu u yeedhay zayd ibnu saabit, wuxuuna u xilsaaray hawshii ugu weyneed ee taariikhda, ururinta qur-aanka kariimka ah. zayd waxa uu yidhi, wallaahi haddii lay faro inaan buul ka raro meesheeda way ii fududaan lahayd. shaqadaas adag waa lagu guulaystay. qur-aankiina waxaa lagu ururiyey xal musxaf, taasoo sabab u ah in qur-aanku uu dhowrsan yahay ilaa iyo maanta. waana camalkii ugu weynaa khilaafadiisii. khilaafadiisa waxay socotay 2 sano iyo dhowr bilood oo keliya, wuxuuna ahaa hogaamiye is-hoosaysiiya oo aan iska beddelin noloshiisii fududayd. wuxuuna weli caanaha u lisi jiray gabdhihii agoomaha ahaa. wuxuuna ku dardaarmay in hantidiisii yareed lagu celiyo baytulmaalka marka uu dhinto. markii uu xanuunsaday waxa uu la tashaday asxaabtii, wuxuuna khaliif uga dhigay cumar ibnu khadaab. isniintii bishii jamaadul aakhir sannadkii 13aad ee hijrada ayuu geeriyooday isagoo 63 jir ah. da'dii uu ku geeriyooday saaxiibkiisii rasuulkii alleh sallallahu calayhi wasallam, waxaana lagu aasay qolkii caysha garabka saaxiibkiisii adduunka ugu jeclaa. markii abubakar uu dhintay, cumar ibnu khadaab waxa uu yidhi, waxaad daal iyo dhibaato u reebtay kuwa adiga kaa dambeeya abubakarow. wuxuu ahaa al-sadiiq, kii runlowga ahaa. waxa uu rumeeyey markii ay dadkii beeniyeen, waxa uu siiyey markii ay dadkii u diideen, waxa uu la jiray markii ay dadkii ka tageen. waxa uu ahaa badbaadiyihii ummadda alle kadib. naxariistii alleh iyo raalli noqoshadiisa korkiisa ha ahaato. taariikhda ummadaha waxaa jira shakhsiyaad dhalashadooda ay la mid tahay dhulgariir beddela muuqaalka dhulka, rag aysan taariikhdu iska indhatiri karin oo magacoodu ku xardhan yahay boogga wakhtiga. qisadeenna maanta waa sheeko ka mid a raggaas. nin cadowgiisa ay ka cabsadeen oo ay saaxiibbadiisa ku faaneen, shayddaankan uu ka leexday waddadiisa. tani ma ahan oo keliya sheekada khaliifkii labaad ee islaamka, ee waa sheekada isbeddelkii ugu weynaa ee shakhsi ku dhaca. safar ka soo bilaabmay cadowgii ugu darnaa ee islaamka ilaa uu ka noqday gaashaankii iyo seeftii ugu adkeed ee islaamka. waa qisadii cumar ibnu khadaab, allaha ka raalli noqdee, ninkii lagu naaneysay alfaaruuq. safarkan waxaan si qoto dheer ugu eegi doonnaa noloshiisii oo dhan, laga soo bilaabo awooddiisii jaahiliyada ilaa islaamitaankiisii mucjisada ahayd ee rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu ku ducaystay. doorkiisii madiina iyo khilaafadiisii dahabiga ahayd ee lagu dhisay aasaaska cadaaladda, maamul wanaagga iyo furashooyinka waaweyn. cumar waxa uu ka dhashay qoys ka mid ah kuwa dhexdhexaadka ah ee reer quraysh, laakiin shakhsiyaddiisa ma ahayn mid dhexdhexaad ah. waxa uu ahaa nin laga cabsado, adag oo aan cidna u jixin. wuxuuna caan ku ahaa legdanka, fardafuulka iyo gabayga. barbaarintiisii adkayd ee aabbihiis waxay ku beertay dabeecad qallafsan oo go'aan leh. waxa uu ka mid ahaa madaxda quraysh, wuxuuna safiir u ahaa xilliyada dagaalka. markii iftiinkii islaamku uu ka soo ifbaxay maka, cumar waxa uu noqday mid ka mid a cadowgii ugu darnaa ee islaamka. dabeecaddiisa adag iyo jaceylka uu u qabay dhaqankii awoowayaashiis ayaa ka dhigtay inuu u arko diintan cusub mid halis ku ah midnimada iyo sharafta quraysh. waxa uu si arxandaraa u cadaadin jiray muslimiintii tabarta yaraa, mana uusan u aabiyeeli jirin dumar iyo carruurtoona. ujeeddadiisa waxay ahayd inuu cabsi geliyo qof kasta oo ku fakera inuu maxamed raaco. haybaddiisa iyo awooddiisa waxay cabsi weyn ku haysay muslimiintii maka. xitaa waxay ku dhiiran waayeen inay si fagaara ugu cibaadaystaan kacbada agteeda. wuxuuna ahaa derbigii ugu weynaa ee hortaagnaa faafitaankii islaamka ee maka. laakiin halka ay dadka u arkayeen cadow naxariis daran, nebiga naxariistiisa waxa uu arkayey
awood iyo karti haddii xaqa loo leexiyo wax weyn tari kara. Habeennada ka mid ah, nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, waxa uu Rabbigiis ka baryey ducadii taariikhda beddeshay. Ducadaasi waxay ahayd bilowgii isbeddelka. Cumar inkastoo uu ahaa nin adag, haddana waxa uu ahaa nin caqli badan oo xaqiiqda raadin jiray. Waxa qalbigiisa uu bilaabay inuu galo shaki iyo isweydiin. Wuxuuna arkayey adkaysiga muslimiinta, wuxuuna la yaabay awoodda ay ku haysa diintan. Maalin ayaa caradiisa waxay gaartay heerkii ugu sarraysay, wuxuuna maqlay in islaamku uu sii fidayo. Isagoo seeftiisii garab ku sita, ayuu si cara looga soo baxay gurigiisa, isagoo ku socda hal ujeeddo. Ujeeddadaasina waxay ahayd inuu dilo Maxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Jidka waxa uu kula kulmay nin la yidhaahdo Nucaym ibnu Cabdullaahi oo si qarsoodiya u islaamay. Markii uu arkay carada Cumar, waxa uu weydiiyey halka uu u socdo. Cumarna waxa uu si bareera ugu sheegay ujeeddadiisa. Nucaym isagoo raba inuu badbaadiyo nebiga, waxa uu ku yidhi, maad reerkaaga ka bilowdid. Walaasha Faadumo iyo saygeedii Siciidna way islaameen. Cumar wuu naxay, wuxuuna u carooday si uusan weligiis hore ugu caroon. Wuxuuna u leexday dhankii guriga walaashiis. Markii albaabka uu dhowaadayna, waxa uu maqlay codka Qabaab oo akhrinayay aayad ka mid ah suuratu Daaha. Markii uu si xoog leh albaabka u garaacayna, way argagaxeen. Waxa uu guriga soo galay isagoo cadhaysan, waxuuna si xun u garaacay sayga walaashiis. Walaashii markay aragtay inuusan naxariisanayn, Faadima waxay muujisay geesinimo aan la filayn, waxayna ku qaylisay, haa, waan islaamay, waxaana rumeeyey Alle iyo rasuulkiisa, ee samee waxaad doonto. Markii uu arkay dhiigga ka qubanaya walaashiis iyo adkaysigeeda, Cumar qalbigiisa wuu jilcay, qoommo ayaana gashay. Wuxuuna yidhi, isiiya kitaabka aad akhrinaysaan. Walaashii waxay ku tidhi, ma taaban kartid adigoo nijaas ah, ee marka hore soo daahiri. Markii Cumar uu soo daahir noqday, waxaa loo dhiibay buugaggii, wuxuuna bilaabay inuu akhriyo aayadihii ugu horreeyey ee suuratu Daaha. Markii uu gaaray Cumar aayadda dhahaysa, aniga ayaa ah Alle, ilaah kale ma jiro aniga mooyaane, ee i caabud, salaadana u og xuskayga. Cumar wuu ooyey. Hadalkani ma ahayn hadal bashar. Iftiinkii iimaanka ayaa si toosa u galay qalbigiisa. Wuxuuna yidhi, ma jiro qof hadalkan iska leh oo ay tahay in wax kale lala caabudo, ee ii geeya Maxamed. Waxa uu aaday gurigii al-Aqram, halkaas oo ay muslimiinta ku dhuumanayeen. Asxaabtii way baqeen markii ay arkeen, laakiin Xamse waxa uu yidhi, haddii uu khayr la yimid, waan soo dhoweynaynaa. Haddii uu shir la yimidna, seeftiisa ayaan ku dilaynaa. Cumar waxa uu si khushuuc leh u yidhi, waxaan u imid inaan rumeeyo Alle, rasuulkiisa, iyo waxa uu xagga Alle kala yimid. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, wuu takbiirsaday. Muslimiintii oo dhammina way la takbiirsadeen, ilaa buurihii Maka ay wada gariireen. Islaamiddiisu waxay ahayd guul weyn. Maalintaas, muslimiintii waxay ka soo wada baxeen dhuumashadii. Cumar ayaa hor kacayay iyagoo laba saf ah, waxayna si fagaaraa ugu tukadeen Kacbada agteeda. Maalintaas ayuu nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, waxa uu u bixiyey magaca Al-Faaruuq. Islaamitaankii Cumar ma ahayn oo keliya guul, balse waxay ahayd bilowga cutub cusub oo dacwada islaamka ah. Waxa uu awooddiisii iyo geesnimadiisii u adeegsaday difaacidda diinta. Hijradiisa waxay ahayd mid ka duwan hijrada asxaabta kale. Isaga ma dhuuman. Waxa uu si fagaaraa ugu dhawaafay Kacbada, wuxuuna ku dhawaaqay inuu u haajirayo Madiina, isagoo cadowgii Quraysh ku wargeliyey, cidna kuma dhiiran inay hor istaagto. Markii Madiina la tegay, Cumar waxa uu noqday arday daacad u ah macallinkiisii Maxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Wuxuuna ahaa halkii rasuulka. Waxa uu bartay diinta, waxuuna noqday mid ka mid ah saxaabadii ugu cilmiga badnaa, uguna fahamka fiicnaa. Inkasta uu ahaa nin adag oo haybad leh, Cumar waxa uu lahaa qalbi jilicsan oo alla ka cabsi badan. Wuxuuna ahaa mid aad u ooya marka uu maqlo aayadaha Qur'aanka ah. Wuxuuna ahaa tusaalaha ugu sarreeya ee is-hoosaysiinta. Waxa uu xidhan jiray dhar iska caadi ah,
waxa uu cuni jiray cunto iska caadiya sida dadka masaakiinta oo kale. Sheekooyinkiisa cadaaladda iyo daryeelka dadka waa kuwo aan la soo koobi karin. Waxa uu ahaa hoggaamiyihii bilaabay kormeerka habeenkii si uu u ogaado xaaladda dadkiisa. Habeennada ka mid ah waxa uu maqlay haweeney carruurteeda ay gaajo la ooyayaan. Isla markiiba waxa uu u orday baytulmaalkii, wuxuuna dhabarkiisa ku soo qaaday jawaan bur ah iyo subag. Markii uu addoonkiisii uu ku yidhi, aniga ayaa kaa qaadayana, waxa uu ku yidhi, ma adiga ayaa maalinta qiyaame iga qaadaya culayskayga. Isaga ayaa u kariyey cuntadii, wuuna la fadhiistay ilaa carruurtii ay ka dhargeen oo ay farxad la seexdeen. Wuxuuna ahaa hoggaamiye dareensan mas'uuliyadda culus ee saaran. Wuxuuna odhan jiray, wallaahi haddii ay laxdu ku lunto webiga Furaad agtiisa, waxaan ka baqayaa in Alle uu i weydiiyo maalinta qiyaame, maxaad waddada u hagaajin weyday Cumarow? Markii Abuubakar uu geeriyooday, waxa uu khilaafada uga dardaarmay ninkii uu ku kalsoonaa inuu ummaddan sii wadi karo. Cumar markii hore wuu ka cagajiiday mas'uuliyaddan culus. Khudbaddii ugu horraysayna wuxuu Alle ka baryey inuu ka caawiyo adkaantiisa. Wuxuuna yidhi, Allahayow, aniga waan adkahay ee i jilci, waxaan ahay baqeel ee deeqsi iga dhig, waan tabar yarahay ee i xooji. Khilaafadiisii 10 sano ahayd waxay noqotay xilligii dahabiga ahaa ee taariikhda Islaamka. Waxay ahayd xilli ay isku darsameen furashooyin waaweyn iyo maamul wanaag aan horey loo arag. Xilligii Cumar, Islaamku waxa uu gaaray labadii quwadood ee adduunka ugu waaweynaa, Imbraadoriyaddii Roomaanka iyo Imbraadoriyaddii Birshiya. Dagaalo taariikhi ah sidii Yarmuug iyo Qaadisiya kadib, waxaa si buuxda u burburtay awooddii Birshiya, waxaana gacanta Muslimiinta soo galay dhulalka Shaam, Ciraaq, Masar iyo Faris. Laakiin dhacdadii ugu weyneed waxay ahayd furashadii magaalada barakaysan ee Qudus kadib go'doomin. Madaxdii kaniisadaha waxay sheegeen inaysan magaalada ku wareejinayn ilaa uu u imaado khaliifkii Muslimiinta laftiisa. Cumar waxa uu Madiine ka soo safray isagoo uu la socdo hal addoon oo keliya, waxayna wateen hal awr oo ay isku bedbedelayeen. Markii Qudus u soo dhowaadeen, waxaa timid samankii addoonka. Cumar waxa uu ka soo degay awrkii, wuxuuna hoggaanka u qabtay addoonkiisii oo fuushan. Taliyayaashii ciidanka ayaa ku yidhi, maxay dadka ku odhanayaan? Laakiin Cumar waxa uu ku yidhi hadalkiisii caanka ahaa, wuxuuna yidhi, waxaan ahayn qoom uu Alle ku sharfay Islaamka. Mar kastoo aan sharaf ka doonno waxaan Islaam ahayn, Alle wuuna dulaynayaa. Waxa uu magaalada galay isagoo lugaynaya, wuxuuna qoray heshiiskii caanka ahaa ee Al-Uxdatul Cumariya, kaasoo ammaan iyo nabadgelyo siinayay dadka magaalada, kaniisadahooda iyo hantidooda. Markii la gaaray wakhtigii salaadda, Cumar waxa uu diiday inuu ku tukado gudaha kaniisadda, isagoo ka baqaya in Muslimiinta ka dambeeya ku candacoodaan oo ay masaajid ka dhigtaan. Cumar waxa uu ahaa maamulo caqli badan. Waxa uu aasaasay hay-adihii ugu horreeyey ee dowladda Islaamka. Waxa uu sameeyey diiwaan. Waxa uu dhisay magaalooyin cusub sida Basra iyo Kuufa. Waxa uu bilaabay taariikhda hijriga. Waxa uu aasaasay nidaamka garsoorka ee gobollada. Waxa uu ahaa hoggaamiye aan seexan si ay dadkiisa u seexdaan. Waxa uu mar walba Alle ka baryi jiray inuu ku arsaaqo shahiidnimo, uuna ku dhinto magaaladii rasuulka, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Ducadiisiina waa la aqbalay. Subax Arbaca ah, isagoo dadka tujinaya salaadda subax, ayaa waxaa mindi sumaysan dhowr jeer caloosha kaga dhuftay nin Beershiyaan ah oo addoon ahaa, laguna magacaabi jiray Abulu'lu al-Majuusi. Markii la qabtayna wuu isdilay. Cumar wuu dhaawacmay, wuxuuna yidhi, yaa i dilay? Markii loo sheegay waxa uu yidhi, alxamdulillaah, inuusan ahayn mid Alle u sujuuday oo maalintii qiyaame igula doodin. Wuxuuna dardaarmay in khilaafada looga tashado 6 nin oo ka mid ah 10kii jannada loogu bishaareeyey. Dardaarankiisii ugu dambeeyeyna waxa uu ahaa in wiilkiisii Cabdulaahi uu u diro Caysho Allaha ka raali noqdee, si uu ugu idin qaato in lagu ag-aaso labadiisii saaxiib agtooda. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee iyo Abuubakar
Caishana way oggolaatay, waxayna tiri, nafteyda ayaan ka hormarin lahaa, laakiin maanta isaga ayaan ka hormarinayaa. Sidaas ayayna ruuxdii weyneed ugu laabatay Rabbigeeda, isagoo ku shahiiday mixraabkii rasuulka, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Cumar ibnu Khadaab waxa uu ahaa mucjiso ka mid ah mucjisaadkii nebiga, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Islaamiddiisa waxay ahayd guul, hijradiisana waxay ahayd furasho, khilaafadiisana waxay ahayd naxariis. Waxa uu ahaa Alfaaruuq, kii ku kala saaray xaqa iyo baadilka, ficilkiisa, hadalkiisa iyo cadaaladdiisa. Waxa uu ahaa hogaamiye isku darsaday awoodda libaaxa iyo qalbiga jilicsan ee ilmaha agoonka ah. Waxa uu ka tegey dhaxal aan weligiis duugoobayn, dhaxal ku dhisan alla ka cabsi, cadaalad iyo mas'uuliyad. Taariikhda Islaamka waxaa ku xardhan magacyada rag iyo dumar, naftooda, maalkooda iyo wakhtigooda oo u huray diinta Alle. Laakiin magacyadaas dhexdooda waxaa jira mid si gaar ah uga iftiimaya laba sifo ay adag tahay in la isku helo: xishood xad-dhaaf ah oo ay malaa'igta ka xishooto, iyo deeqsinimo aan xad lahayn. Qisadeenna maanta waa sheekada ninkii rasuulka uu u guuriyey labadii gabdhood ee uu dhalay, taasoo uu ku mutaystay naanaysta aysan cid kale la wadaagin ee ah danuurayn. Safarkan dheer waxaan si qoto dheer u dhexgeli doonnaa dadweynta noloshiisii, laga soo bilaabo noloshiisii sharafta lahayd ee jaahiliyada ilaa islaamiddiisii, hijradiisii labada jeer ahayd, deeqsinimadiisii taariikhda gashay, khilaafadiisii barwaaqada iyo furashooyinka, iyo ugu dambayn imtixaankii weynaa ee fidnada iyo shahiidnimadiisii murugada lahayd. Cusmaan waxa uu ka dhashay qoys ka mid ah kuwa ugu sharafta iyo hantida badan ee reer Quraysh, wuxuuna ka dhashay qoyska reer Bani Umaya. Waxa uu ahaa nin aad u qurux badan, deeqsi ah oo jilicsan, taasoo keentay in dadku ay aad u jeclaadaan. Laakiin sifadiisii ugu weyneed waxay ahayd xishoodkiisa. Waxa uu ahaa nin aad u xishood badan. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu yidhi, miyaydan ka xishoonayn nin malaa'igta ay ka xishooto? Xitaa xilligii jaahiliyada waxa uu ahaa nin ka fog wasaqdii iyo dhaqamadii xumaa ee bulshadiisa. Marnaba sana ma uusan caabudin, marnaba qamri ma uusan cabin, marnaba sinna uma uusan dhowaan. dabeecaddiisa waxay ahayd mid nadiif ah. Waxa uu ahaa ganacsade guulaystay oo daacad ah. Hantidiisa badan iyo maqaamka sare ee bulshada dhexdeeda uu ku lahaa waxay ahaayeen wax uu Alle ugu talagalay in mustaqbalka ugu adeego diinta Islaamka. Cusmaan waxa uu ka mid ahaa kuwii ugu horeeyey ee Islaamka qaata. Islaamiddiisa waxay ku timid gacanta Abubakar as-Siddiiq. Abubakar markii uu soo bandhigay diintan cusub, Cusmaan oo ahaa nin caqli badan oo qalbi saafi ah, kama uusan labalabayn, wuxuuna gartay inay tahay xaq. Islaamiddiisa waxay u keentay dhibaato. Adeerkiisa Al-Xakam si xun ayuu u jirdili jiray, wuuna xirxiri jiray, wuxuuna ku yidhi, ma waxaad ka tegaysaa diintii awoowayaashaada? Laakiin Cusmaan waxa uu ku adkaystay iimaankiisa. Markii cadaadiska uu ku batay muslimiintii Maka, nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu idmay inay u haajiraan dhulka Xabasha. Cusmaan iyo xaaskiisa Ruqiya oo ahayd gabadhii rasuulka waxay ahaayeen kuwii ugu horeeyey ee qoys ah ee u haajira jidka Alle. Waxay ahayd safar dheer oo adag. Waxa uu ka tegey hantidiisii iyo ganacsigiisii, isagoo doortay inuu la cararo diintiisa. Kadib markii ay soo noqdeen, waxa uu mar kale sameeyey hijradii labaad ee weyneed, isagoona u haajiray Madiina, halkaas oo mar kale wax walba dib uga soo bilaabay eber. Labadan hijro waxay ka marag kacayaan sida adduunyada uga doorbiday aakhirada. Maqaamka Cusmaan ee nebiga agtiisa waxa uu ahaa mid aad u weyn. Waxa uu siiyey gabadhiisii Ruqiya markii la aaday dagaalkii Badar. Ruqiya way xanuunsanayd. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu Cusmaan ku amray inuu u haro si uu u daryeelo xaaskiisa, wuxuuna u sheegay inuu la wadaagi doono ajarka iyo qaniimada dadkii dagaalamay. Ruqiya waxay geeriyootay maalintii guushii Badar ay Madiina soo gaartay. Geeridaas Cusmaan waxay ku reebtay murugo weyn. Cumar ibnu Khadaab ayaa isku dayey inuu u guuriyo gabadhiisii Xafsa,
laakiin Cusmaan waa uu ka cudur daartay. Cumarna arrintaas wuu ka xumaaday, wuxuuna uga cawday nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Nebiga wuu u dhoola caddeeyey, wuxuuna ku yidhi, waxaa Xafsa guursan doonaa mid ka qayr badan Cusmaan, Cusmaanna waxa uu guursan doonaa mid ka qayr badan Xafsa. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, isaga ayaa guursaday Xafsa, wuxuuna Cusmaan u guuriyey gabadhiisii kale ee Umulkalsuum. Markii uu guursaday labadii gabdhood ee rasuulka, waxa uu helay naanaystii sharafta lahayd ee Dannuurayn. Markii ay iyaduna dhimatay Umulkalsuum, nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, waxa uu yidhi, haddii aan gabarh saddexaad lahaan lahaa, isaga ayaan u guurin lahaa. Tani waxay muujinaysaa sida nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee uu u jeclaa una aaminay Cusmaan. Haddii xilligii jaahiliyada Cusmaan uu ku caan ahaa deeqsinimadiisa, Islaamka dhexdiisana deeqsinimadiisii waxay gaartay heer aan la malaysan karin. Waxa uu maalkiisa u arkayey waxa uu Alle u siiyey si uu ugu bixiyo jidka Alle. Laba dhacdo oo waaweyn ayaa si gaara u muujinaysa badweyntan deeqsinimada ah. Markii muslimiinta ay soo gaareen magaalada Madiina, waxay la kulmeen biyo yari. Biyaha macaan ee magaalada waxaa lahaa ceel la yidhaahdo Bi'r Ruuma oo uu lahaa nin Yahuudiya, kaasoo dadka si qaaliya biyaha uga iibin jiray. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, waxa uu yidhi, qofkii iibsada ceelka Ruuma oo u sadaqeeya muslimiinta, waxa uu leeyahay il jannada ku taala. Cusmaan ayaa isla markiiba dhaqaaqay. Yahuudigii waxa uu diiday in ceelka oo dhan uu iibiyo. Cusmaanna waxa uu ka iibsaday ceelka barkiisa, waxauna kula heshiiyey in maalin isaga uu leeyahay, maalinta kalena Yahuudiga uu leeyahay. Maalintii Cusmaan, dadka waxa uu oggolaaday inay bilaash ku cabaan, waxayna qaadan jireen biyo 2 maalin ku filan. Yahuudigii markii uu arkay in maalintiisa ay cidina wax ka iibsanayn, waxa uu ku qasbanaaday in barkii kalena uu ka iibiyo Cusmaan. Sidii ayuu Cusmaan ceelkii oo dhan ugu sadaqeeyey muslimiinta, waxuuna helay bishaaradii weyneed. Dhacdadii labaadna waxay ahayd markii la aadayey dagaalkii Tabuuk. Waxay ahayd xilli abaar ah oo kulul, cadowguna waxa uu ahaa Roomaanka oo awood badnaa. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, waxa uu asxaabtii ku booriyey inay wax sadaqaystaan. Cusmaan waxa uu keenay 1,000 awr iyo qalabkoodii. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, waxa uu sii waday dhiirigelintii. Cusmaan waxa uu yidhi, aniga ayaa dusha saaranaya 100 kale. Waxa uuna sii waday ilaa uu buuxiyey 300 oo awr iyo qalabkoodii, 50 faras iyo 1,000 diinaar oo dahab ah. Waxa uuna ku shubay dhabta rasuulka, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Nebiga waxa uu yidhi isagoo faraxsan, maanta kadib wax dhibaato ah uma keeni doonto Cusmaan wax kasta uu sameeyo. Sanadkii 6aad ee Hijriga, nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee iyo 1,400 asxaabtiisa ka mid ah waxay u soo baxeen si ay u gutaan cumro. Quraysh ayaa hor istaagtay wadahadal dheer kadib. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, waxa uu u baahday nin aqli badan oo sharaf ku leh Quraysh si uu danjir ahaan ugu diro magaalada Maka. Waxa uuna doortay Cuthmaan ibn Cafaan. Cusmaan waxa uu galay magaaladii Maka, waxauna u sheegay madaxdii Quraysh inaysan dagaal u imaan, balse ay u yimaadeen inay cumraystaan. Way ka diideen, waxayna ku yidhaahdeen, adiga haddii aad rabto dawaaf. Laakiin Cusmaan waxa uu ku yidhi, wallaahi ma dawaafayo ilaa rasuulkii Alle uu ka dawaafo. Markii wadahadalkii uu raagay, muslimiintii waxaa soo gaaray warar been ah oo sheegaya in Cusmaan la dilay. Tani waxay ahayd dhibicdii dabka shiday. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, waxa uu fadhiistay geed hoostiisa, wuxuuna asxaabtii ka qaaday ballan adag oo ah inaysan cararayn, ayna u aari doonaan dhiigga Cusmaan. Ballantaasi waxaa loo yaqaanaa baycatu Ridwaan. Markii uu ballanta qaaday, nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, waxa uu qabtay gacantiisii midig, wuxuuna yidhi, Cusmaan waxa uu ku maqan yahay hawl Alle iyo rasuulkiisa ah. Kadibna gacantiisii bidix ayuu qabtay, wuxuuna yidhi, tani waa gacantii Cusmaan. Ma jirto sharaftan ka weyn oo ah in gacanta rasuulka ay noqoto wakiilka gacantaada. Dhacdadan waxay muujinaysaa
maqaamka weyn ee Cuthmaan uu ku lahaa qalbiga nebiga. Markii Cumar ibnu Khadaab uu shahiiday, waxa uu khilaafada uga tegey 6 nin oo ka mid ahaa asxaabtii ugu waaweyneed si midkood ay u doortaan. Tartankiina waxa uu ugu dambayn isugu soo haray 2 nin, Cali ibnu Abi Daalib iyo Cusmaan ibnu Cafaan. Cabdiraxmaan ibnu Cawf oo loo saxiixay go'aanka kama dambaysta ah ayaa 3 maalmood oo uu la tashanayay qof kasta oo Madiine ku nool. Ugu dambaynna subaxii dambe waxa uu masjidka dhexdiisa ku magacaabay Cusmaan ibnu Cafaan isagoo da'diisa ay ku dhoweyd 70 sano. Khilaafadiisii waxay ku bilaabatay jawi nabad iyo barwaaqo ah, waxayna socotay 12 sano. 6dii sano ee hore waxay ahaayeen sannado nabad ah, midnimo iyo furashooyin waaweyn ah. Laakiin 6dii sano ee dambe waxaa bilaabmay imtixaankii ugu adkaa ee ummadda soo mara tan iyo geeridii rasuulka kadib. Camalkii ugu weynaa ee khilaafadii Cusmaan waxay ahayd midaynta Qur'aanka. Markii furashooyinkii ay gaareen meelo fogfog, dadkii aan Carabta ahayn waxay bilaabeen inay Qur'aanka ugu dhawaaqaan si kala duwan, taasoo keentay khilaaf iyo is-eedayn. Xudayfa ibnu Yamaan ayaa arkay halistan, wuxuuna si degdeg ah ugu digay Cusmaan isagoo la tashtay asxaabtii waaweyneed. Waxa uu sameeyey go'aan taariikhi ah, wuxuuna amray in la keeno musxafkii lagu ururiyey Qur'aanka xilligii Abuubakar ee yaalay gurigii Xafsa. Wuxuuna magacaabay guddi uu hogaaminayo Zayd ibnu Saabit si ay u soo qoraan dhowr nuqul oo leh hal fal qoraal. Markii ay shaqadii dhammaatay, waxa uu amray in dhammaan wixii musxaf kale ah ee ay dadku gacanta ku hayeen la gubo si loo ciribtiro iskhilaafka. Wuxuuna u diray nuqulkii rasmiga ahaa magaalooyinkii waaweynaa ee Islaamka. Ficilkan geesinimada leh waxa uu badbaadiyey midnimadii ummadda iyo dhowrsanaanta kitaabkii Alleh ilaa iyo maanta. Intaasi waxaa barbar socday furashooyin waaweyn. Waxaa la furtay Armeniya, Azerbaijan iyo inta badan dhulkii Faris, waxaana la aas-aasay ciidankii badda ee ugu horreeyey ee Islaamka, kaasoo qabsaday jasiiradda Qubrus. Dowladdii Islaamkana waxay gaartay meeshii ugu ballaarnayd. Guushaas iyo barwaaqadaas waxaa la socday imtixaan adag. Waxaa soo baxay kooxo qarsoon oo uu hogaaminayey nin Yahuudi ahaa oo la odhan jiray Cabdulaahi ibnu Saaba, kaasoo iska dhigayey inuu islaamay. Ujeeddadoodana waxay ahayd inay burburiyaan midnimada muslimiinta, waxayna bilaabeen inay faafiyaan dacayado iyo eedeymo been ah oo ka dhan ah Cusmaan ibnu Cafaan iyo guddoomiyeyaashiisii. Waxayna ku eedeeyeen qaraabakiil, sida in jagooyinka uu dhiibay dad qaraabadiis ah. Sida saxdaana waxay tahay waxa uu u dhiibay dad u qalmay sida Mucaawiya oo Cumar laftiisa uu horay u magacaabay. Eedaynta labaadna waxay ahayd maalbixin. Waxayna ku eedeeyeen in hantidii baytulmaalka uu siiyey qaraabadiisa. Sida saxdaana waxay tahay inuu bixiyey maalkiisii gaarka ahaa oo ahaa mid aad u badan. Dacayadii saddexaadna waxay ahayd gubitaanka musxafka. Tani waxay ahayd eedayntii ugu weyneed, laakiin waxa uu sameeyey isagoo la tashtay dhammaan asxaabtii waaweyneed ee Madiine joogtay. Dacayadahan waxay ku fideen magaalooyinka Ciraaq iyo Masar. Kooxihii fidnada waday way isku soo urureen, waxayna u soo kaceen magaalada Madiina iyagoo iska dhigaya inay cabasho qabaan. Kooxihii fallaagada ahaa waxay goodoomiyeen gurigii khaliifka, waxayna jareen biyihii, isagii oo ahaa ninkii iibiyey ceelkii Rooma. Asxaabtii waaweyneed sida Cali, Dalxa iyo Zubayr waxay u soo direen wiilashoodii si ay u difaacaan albaabka guriga. Laakiin Cusmaan waxa uu qaatay mowqif adag, wuxuuna si adag u diiday in dhiig muslimiin ku daato magaalada Madiina isaga dartiis. Wuxuuna amray in dhammaan dadkii difaacayay ay hub ka dhigaan oo ay guryahoodii aadaan. Wuxuuna doortay inuu naftiisa huro si uu u badbaadiyo magaaladii rasuulka. Habeenkii ugu dambeeyey waxa uu riyo ku arkay nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, Abuubakar iyo Cumar. Waxayna ku yidhaahdeen, Cusmaanow soo degdeg, caawa ayaadna la afuraysaaye. Wuxuuna toosay isagoo faraxsan oo yaqiinsan inuu la kulmayo Rabbigiisa. Uuna soomay maalintii dambe. Galabtii Jimcaha 18 Dilxaji sannadkii 35 ee Hijriga ayay fallaagadii ka soo boodeen
derbigii guriga, waxayna u soo galeen isagoo akhrinaya Qur'aanka Kariimka ah, waxayna ku dhufteen seeftii, dhiiggiisii daahirsanaana waxa uu ku daatay musxafkii, isagoo ku aadan aayadda dhahaysa, Allah ayaa kaaga filnaan doona iyaga, waana kan wax kasta maqla, wax kastana og. Waxa uu shahiiday isagoo 82 jir ah. Xaaskiisii Naa'ila ayaa isku dayday inay difaacdo, farahana waa laga gooyey. Geeridiisii waxay ahayd albaabkii fidnada ee ummadda ku furmay oo aan weli xirmin. Cusmaan ibnu Cafaan waxa uu ahaa buur samir ah, badweyn deeqsi ah, iyo tusaale xishood ah. Noloshiisa waxay ahayd mid u go'an Alle iyo rasuulkiisa. Waxa uu ku noolaa sharaf, wuxuuna ku dhintay dulmi, laakiin dhaxalkiisu wuu waari doonaa. Kitaabka Alle ee maantaan akhrinno waa mid ka mid ah midhaha dhaxalkiisii. Waxa uu ahaa Dhannuurayn, saaxiibkii rasuulka sallallahu calayhi wasallam, iyo mid ka mid ah 10kii jannada loogu bishaareeyey. Naxariista Alle iyo raalli noqoshadiisa korkiisa ha ahaato. Taariikhda Islaamka waxaa jira shakhsiyaad aan noloshooda laga sooci karin nolosha rasuulka sallallahu calayhi wasallam, rag ku koray gacantiisa, kuna barbaaray indhihiisa hortooda, oo nuugay xigmaddiisii iyo akhlaaqdiisii tan iyo yaraantoodii. Qisadeenna maanta waa sheekada mid ka mid ah raggaas. Tani ma ahan oo keliya sheekada khaliifkii afaraad ee Islaamka, ee waa sheekada ilmihii ugu horreeyey ee rumeeyey rasuulka, wiilkii adeerka u ahaa ee uu korsaday, ninkii uu sodogga u ahaa, iyo geesigii dagaalada. Waa qisadii Cali ibn Abi Daalib, Allaha ka raalli noqdee. Safarkan dheer waxaan si qoto dheer u dhexgeli doonnaa noloshiisii cajiibka ahayd, laga soo bilaabo dhalashadiisii ilaa barbaaritaankiisii guriga nebiga, geesinimadiisii aan leexleexadka lahayn, cilmigiisii badweynta ahaa, khilaafadiisii imtixaanada badnayd, iyo shahiidnimadiisii murugada lahayd. Cali waxa uu ka dhashay qoyskii ugu sharafta badnaa Quraysh, wuxuuna ka dhashay qoyskii reer Bani Haashim. Aabbihii waxa uu ahaa Abu Daalib, adeerkii nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ee difaacay. Hooyadiina waxay ahayd Faadima bintu Asad, oo uu nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ula dhaqmi jiray sidii hooyadiis oo kale. Riwaayado badan ayaa sheegaya in Cali uu ku dhashay gudaha Kacbada sharafta leh, taasoo ah sharaf aan cid kale la wadaagin haddii ay sugnaato. Markii Maka ay ka dhacday abaar adag, aabbihiis Abu Daalib oo carruur badan lahaa, dhaqaalihiisana uu liitay, ayaa nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee iyo adeerkiisa Cabbaas waxay go'aansadeen inay kafaalqaadaan carruurtiisa si ay culayska uga fududeeyaan. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu doortay inuu korsado Cali. Sidaas ayuu Cali ku noqday mid ku kora oo ku barbaara gurigii nebinimada. Xitaa ka hor intaana waxyiga soo degin, waxa uu si toosa u arkayey akhlaaqdii iyo dhaqankii suubanaa ee rasuulkeenna sallallahu calayhi wasallam, wuxuuna arkayey runsheegnimadiisii, aaminaaddiisii, iyo naxariistiisii. Markii waxyiga uu soo degay, nebigana uu bilaabay dacwaddii qarsoodiga ahayd, Cali waxa uu ahaa ilmo yar oo 10 jir ku dhow, wuxuuna arkay nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee iyo Khadiijo oo tukanaya, wuxuuna weydiiyey waxa ay samaynayaan. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu ugu yeeray diinta Islaamka. Cali oo aan weligii sanam caabudin, qalbigiisana uu saafi ahaa, kama uusan labalabayn, waxuuna noqday ilmihii ugu horreeyey ee qaata diinta Islaamka. Intii lagu guda jiray sannadihii adkaa ee Maka, Cali waxa uu ahaa midaan ka fogaan nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, wuxuuna la wadaagay dhibaatadii, gaajadii, iyo go'doomintii, wuxuuna ka mid ahaa mid ka mid ah kuwii ugu firfircoonaa ee caawiya nebiga. Laakiin mowqifkiisii ugu weynaa uguna halista badnaa waxa uu yimid habeenkii hijrada, markii madaxdii Quraysh ay go'aansadeen inay hamar wada dilaan nebiga. Jibriil ayaa nebiga u sheegay shirqoolka. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu u yeeray Cali, wuxuuna u sheegay qorshaha, wuxuuna faray inuu seexdo gogoshiisii si cadowga u tuso inuu weli guriga joogo, isla markaana subaxii uu guto ammaanooyinkii uu nebiga u hayay dadka. Cali isagoo og inuu dhiman karo daqiiqad kasta, kama uusan shakin
amarkii nebiga wuxuuna seexday gogashii geerida si uu u badbaadiyo nolosha rasuulka. Wuxuuna yidhi, marnaba ma seexan hurdo ka macaantii habeenkaas. Subaxii markii cadowgii ay soo galeen, waxay la yaabeen inay arkaan Cali. Ishuriddaasi waxay ahayd mid ka mid a calaamadihii ugu waaweynaa ee iimaankiisa. Kadibna waxa uu gutay ammaanooyinkii, wuxuuna si geesinimo leh ugu soo haajiray magaalada Madiina, isagoo lugaynaya ilaa cagihiisu ay ka dildilaaceen. Markii uu Madiine yimid, nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, aad ayuu ugu farxay, wuuna isku duubay. Markii nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee uu walaaleeyey muhaajiriinta iyo ansaarta, nin walba waxa uu helay walaalkiis. Cali ayaa haray. Nebiga ayaa u yeeray Cali, wuxuuna ku yidhi, adiga waxaa tahay walaalkay adduun iyo aakhiraba. Tani waxay muujinaysaa xiriirkoodii gaarka ahaa. Muddo yar kadib waxaa la gaaray wakhtigii guurkiisa. Rag badan oo asxaabta ka mid ahaa ayaa doonayay inay guursadaan gabadhii nebiga uu jeclaa, Faatimatu Zahra. Laakiin nebiga waxa uu sugayey amarka Alle. Ugu dambaynna waxa uu u guuriyey Cali. Guurkooda waxa uu ahaa midkii ugu barakada badnaa taariikhda Islaamka. Ma ahayn guur hanti iyo adduunyo ku dhisan, balse waxa uu ahaa mid ku dhisan iimaan, jacayl iyo Alla ka cabsi. Waxayna u dhashay labadii wiil ee nebiga uu jeclaa, Xasan iyo Xuseen. Imaanshaha Madiina waxa uu ahaa bilowga marxalad cusub oo nolosha Cali ah, waxaana soo baxday shakhsiyaddiisii geesnimada lahayd ee dagaalyahanka. Ma jirin dagaal weyn oo nebiga uu galay oo uusan Cali ka joogin safka hore. Dagaalkii Badar waxa uu ka mid ahaa mid ka mid ah saddexdii geesi ee u soo baxay la dagaalankii foolka ahaa, wuxuuna si fudud u dilay cadowgii Waliid bin Cutba. Wuxuuna ahaa mid ka mid ah sababihii ugu waaweynaa ee guusha Badar. Dagaalkii Uxud, markii muslimiintii ay jabeen, nebigana uu dhaawacmay, Cali wuxuu ka mid ahaa kooxdii yareed ee naftooda u hurtay difaaca rasuulka. Wuxuuna ahaa ninkii hayay calanka muslimiinta kadib markii Muscab uu shahiiday. Waxa uu ahaa kii biyaha keenay si wejiga nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee loogu dhaqo. Maalintaas waxaa la maqlay cod samada ka yeeraya oo leh, laa faata ilaa Cali, laa sayfa ilaa Dulfiqaar. Ma jiro geesi aan ahayn Cali, mana jirto seef aan Dulfiqaar ahayn. Dagaalkii Khandaq, tani waxay ahayd mid ka mid a dhacdooyinkiisii ugu caansanaa. Markii geesigii weynaa ee Carabta, Caamir ibnu Cabdiwuud, uu ka soo baxay dhufayskii oo faanay, uuna yidhi, miyuusan jirin nin aniga ii soo baxaya, cidina kuma dhicin. 3 jeer ayuu ku celceliyey. 3dii jeerba Cali ayaa istaagay, wuxuuna eegayey nebiga. Markii 3aad, nebiga wuu u duceeyey, wuuna diray. Dagaal adag kadib, Cali wuu ka adkaaday. Markii Caamir uu ku tufay Cali, Cali wuu istaagay si dilkiisa uusan u noqon mid cara dartiis ah. Wuxuuna tusay akhlaaqdii dagaalka ee Islaamka. Dagaalkii Khaybar, tani waxay ahayd maalintiisii markii muslimiinta ay ku guuldareysteen inay furtaan dhufayskii ugu adkaa ee Yahuudda. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu yidhi hadalkiisii caanka ahaa, wuxuuna yidhi, berita waxaan calanka u dhiibayaa nin Alle iyo rasuulkiisa jecel oo ay jecel yihiin Alle iyo rasuulkiisuna. Asxaabtii oo dhan waxay jeclaysteen inay noqdaan ninkaasi. Subaxii, nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu yidhi, aaway Cali. Waxaa loo sheegay in Cali uu ka xanuunsanayay indhaha, kadibna waa loo keenay. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee candhuuftiisii barakaysnayd ayuu mariyey indhihiisa, isla markii wuu bogsooday. Wuxuuna qaatay calankii, wuxuuna dilay geesigoodii Madaxab, wuxuuna furtay dhufayskii. Riwaayaduhu waxay sheegaan in albaabkii weynaa ee dhufayska uu ka siibay, kadibna gaashaan uu ka dhigtay. Geesinimadiisa dagaalka waxaa barbar socday cilmigiisii badweynta ahaa. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu yidhi, aniga waxaan ahay magaaladii cilmiga, Calina waa albaabkeedii. Waxa uu ka mid ahaa saxaabadii ugu cilmiga badnaa, gaar ahaan dhanka Qur'aanka, tafsiirkiisa iyo garsoorka. Waxa uu ahaa
ninkii nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee uu u diray Yaman garsoor ahaan markii uu ku yidhi rasuulkii Allow waan yarahay oo garsoorka aqoon uma lihi. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee laabtiisa ayuu gacanta saaray uuna u duceeyey oo wuxuu yidhi Allahayow qalbigiisa hanuuni carabkiisana sug. Cali waxa uu yidhi intaasi kadib marnaba kama aanan shakin xukun aan ridayo. Cumar ibnu Khadaab waxa uu odhan jiray kan ugu garsoorka fiican waa Cali. Mar walba ay soo baxdo arrin adag waxa uu la tashan jiray Cali. Xilliyadii khilaafadii Abuubakar iyo Cumar, Cali waxa uu ahaa la taliye daacad ah oo muhiim ah. Ma ahayn qof iska fadhiyey, balse waxa uu ahaa tiir ka mid ah tiirarkii dowladdii Islaamka. Wuxuu isku darsaday aqoontii iyo falkii. Wuxuu ahaa tusaalaha hogaamiyaha caalimka ah. Waxa uu ka mid ahaa 4 qof ee nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee uu amray in Qur'aanka laga qaato. Cutubka ugu dambeeya ee nolosha Cali waxa uu ahaa kii ugu imtixaanka badnaa. Geeridii Cusmaan kadib, ummadda Islaamka waxaa gashay xaalad fawda ah oon horey loo arag. Waxaa lumay midnimadii iyo kala dambayntii. Dadkii Madiina waxay u yimaadeen Cali iyagoo ka baryaya in hoggaanka uu qabto si ummadda uu u badbaadiyo. Wuu diiday markii hore isagoo ogaa culayska iyo fidnada jirta. Wuxuuna yidhi idaaya oo qof kala doonta. Haddii aad idaysaan waxaan ahaanayaa sida qof idinkaydii ka mid ah. Laakiin markii ay ku adkaysteen wuxuu ku qasbanaaday inuu aqbalo mas'uuliyaddan si uu u badbaadiyo wixii uu badbaadin karo. Wuxuuna noqday khaliifkii 4aad ee dowladdii Islaamka. Khilaafadiisu waxay bilaabatay iyadoo ay jiraan caqabado waaweyn. Caqabadda ugu weynna waxay ahayd dalabkii ahaa in si degdeg ah loogu aaro dhiigga Cusmaan. Cali waxa uu aaminsanaa in marka hore dowladda cagaha ku istaagto oo fidnadu ay degto, kadibna la raadiyo dembiilayaasha. Laakiin qaar ka mid ah asxaabtii waaweyneed sida Dalxa, Zubayr iyo Caasha Allaha ka raalli noqdee waxay u arkayeen arrintan in dib loo dhigayo. Dagaalkan siyaasadeed oo ay sii hurinayeen dadkii fidnada waday waxa uu keenay musiibooyinkii ugu horeeyey. Waxaana dhacay dagaalkii Rabuuka. Waxay ahayd dhacdo murugo badan oo ay isaga hor imaadeen 2 ciidan oo muslimiin ah oo labada dhinac ay ka buuxeen asxaab sharaf leh. Cali marnaba ma uusan doonin dagaalkan, waxa uuna isku dayey wadahadal iyo heshiis. Maalintii heshiiska la gaaray ayay dadkii fidnada waday ee dilay Cusmaan waxay habeenkii weerar ku qaadeen labadii ciidan si dagaalka ay u sii huriyaan. Dagaal adag kadib waxaa guulaystay ciidankii Cali, laakiin guushani waxay ahayd mid murugo leh. Cali wuu ooyey markii uu arkay meydka Dalxa iyo Zubayr. Wuxuuna si sharaf leh u sagootiyey hooyadii muuminiinta ee Caysha, isagoona ku celiyey magaalada Madiina. Waxaa kaloo dhacay dagaalkii Sifiin. Khilaafkii labaad waxa uu ka yimid dhanka Shaam oo uu guddoomiye ka ahaa Mucaawiya ibn Abi Sufyaan. Isaguna waxa uu dalbaday in marka hore loo aaro Cusmaan ka hor inta uusan aqoonsan khilaafada Cali. Tani waxay keentay dagaalkii Sifiin oo ahaa kii ugu dhiigdaadashada badnaa ee muslimiinta dhex mara. Markii ciidankii Cali ay ku sigteen inay guulaystaan ayaa ciidankii Mucaawiya waxay kor u taageen musxafyada iyagoona dalbaday in lagu kala baxo kitaabka Alle. Sidoo kale waxaa dhacay dagaalkii Nahrawaan. Cali oo rabay inuu dhiigga joojiyo waxa uu aqbalay garsoorka, laakiin koox ka mid ah ciidankii ayaa ku kacay iyagoona yidhi xukunka Alle unbaa iska leh. Waxayna u arkeen aqbalaadda garsoorka inay tahay gaalnimo. Kooxdan waxaa loo bixiyey Khawaariij. Cali wuu la dooday wuuna ka guulaystay xujo ahaan, laakiin waxay ku adkaysteen baadilkoodii. Waxayna bilaabeen inay dilaan muslimiintii. Ugu dambaynna waxa uu ku qasbanaaday inuu la dagaalamo dagaalkii Nahrawaan. Fidnadii Khawaariijta waxay dhalisay shirqoolkii ugu xumaa. 3 ka mid ah waxay go'aansadeen in hal habeen ay wada dilaan 3 hoggaamiye: Cali, Mucaawiya iyo Caamir ibn al-Caas. Labadii kale way fashilmeen, laakiin kii loo diray Cali oo ahaa Cabdiraxmaan ibn Muljam wuu ku guulaystay qorshihii foosha xumaa. Subaxii Jimcaha 19 Ramadaan sanadkii 4aad ee Hijriga, isagoo ummadda tujinaya salaada subax ayuu ibnulmuljim seeftii sumaysneed madaxa kaga dhuftay
amiirulmu'miniin cali dhiiggiisii daahirsanaa ayaa mixraabkiina qariyey, laakiin xitaa isagoo uu hayo sakaraadka geerida cadaaladdiisii iyo naxariistiisii ma dhammaan. markii la qabtay ninkii dilay waxa uu yidhi, si fiican ula dhaqma maxbuuskiina. haddii aan noolaado aniga ayaa iskale dhiiggiisa, haddii aan dhintana dilkiisa ha ku degdegina oo ha ku xadgudbina. waxa uu kula dardaarmay wiilashiisii xasan iyo xuseen inay alla ka baqaan, runta sheegaan, ayna u naxariistaan agoonta. eryadiisii ugu dambeeyeyna waxay ahaayeen shahaadateynka. sidaas ayayna ruuxdii geesiga ahayd, caalimka ahayd, ugu laabatay xagga rabbigeeda, isagoo shahiida oona ku shahiidiyey mixraamka. cali ibnu abidaalib waxa uu ahaa isku darkii sifooyinkii ugu wanaagsanaa, wuxuuna ahaa geesi aan lehleexad lahayn, caalim aan la gaari karin, garsoore cadaalad badan, hogaamiye is-hoosaysiiya, iyo caabid qalbi jilicsan. naxariista alleh iyo raalli noqoshadiisa korkiisa ha ahaato amiirulmu'miniin cali ibnu abidaalib.